waxaa dhacay 2010kii ayaa waxaan joogay dhulkan Sacuudiga markaasaa joornaal waxaa lagu soo qoray qiso cajiib ah joornaalka marka waxaa ku qoraa nin markaas Sacuudiyahan ahaa ayaa waxaa ku dhacay xanuunkan fashalul kula yani keliyihii ka fariistay ma shaqaynayaan la keliyahan waagaas marka waxaa furaa hindiya furayd in keliyaha laga iibsado shacabka hindiya laakiin hadda dawladdu way diideen hindiya keliyaha in shacabkeeda laga iibiyo dawladdu qaanuunkay ku soo dartay oo waaba diideen keliyaha laga iibsado laakiin xilligaa way furay dadku keliyaha iibsan jiray marka waa tegay hindiyu aaday si uu keliya u soo iibsado haweeney waxaa u timid waa yeel ah markaasay tiri anigaa diyaar ah waxaan rabaa hal keli iga iibso wuxuu yidhi maxaa kugu kallifay ninkii xanuunsanaya wuxuu yidhi maxaa kugu kallifay kelidaada inaad iga iibiso waxay tidhi waxaa igu kallifay kelidan inaan kaa iibiyo 7 carruura aabbahood iga dhintay waxaan dab ugu shidana ma hayo waa ku rafaaday korintoodii waa ku baaba'ay waa ku kurbooday marka $25,000 on kaa helayo $25,000 markaa yani uu u sheegay inuu ka siinayo $25,000 halkii keliya waxaan rabaa shirkad inaan ugu daro biilkooduna uu meel iga saaro carruurtaas ninkii markaa waa u danqaday oo waa iska ooyey waxay ilmaheedii siisa inta weysay kelideedii ay bixinayso waa u danqaday kelideedii bixinay oo ilmihii u bixinay yani si ay ugu biisho ninkii $25,000 uu soo bixiyey gacantuu ka saaray kelina kaama rabo yidhi orod iska tag ii ducey oroda iska tag dadku murugo iyo kurbay la ooyaan islaantii farxaday la ooyday kelideedii oo uu fasaxay iyo lacag aysan weligeedba soo gelin oo gacanta ay ku haysato iyadoo iska ooyeyso farxad la ooyeysay iska baxay ninkii isbitaalku iska joogo dad kale aan raadsanayo yidhi iska baxa lacagtaadana si hayso habeenkii uu seexday kateetaraa ugu jiray masuushuu tegey isagii dhammaa fudayduu dareemay kateetarkii uu iska siibay si caadi u kaadiyey waa dhowr sano inaan kaadiyu ka imanba si dabiici aan u kaadinay kabacdi marka dhakhtarkuuyuu u tegey oo intaasoo malafaada laga hayaa oo folder dhanaa buuxsamay warqadihiisii markaasuu wuxuu yidhi bal niyow baaritaan igu samee warqadihiigii hore adiga haya dhakhtarkii waa baaray weligaaba keliyu kuma xanuuninayo ee ninkii hore ma tihid miya ninkii hadda aan baarayay ma tihid miya adigu waa kana warqadahaagii cadaymahaagii oo dhan halkanay ku qoran yihiin maxaad samaysuu yidhi qisadii u sheegay haweeneydaa saa igu timidaan la kurbooday uu yidhi lacagtiina waa iska siiyey kelideediina kama baxsanin farxadeeda la ooyeysay iga tagtay jariidadaa lagu soo qoray markaas oon ka akrinay joornaalkaa lagu soo qoray daawu mardaakum bisadaqة waxaa soo baxaya xadiiskii nabigeenna salى اllahu wasalam wbaaraka calayh uu yidhi dadka idinka xanuunsanaya sadaqo ku daaweeya rasuulku salى اllahu wasalam wbaarak